والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعلى الله السائلين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مدحوينه شيخ شريف شيخ أحمد مدحوينه تضوات Soomaaliya mudane xasan sheekh madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha dhammaan mudanayaasha meesha joogaan iyo muwaadiniinta dhanba iga gudoomo salaan diiran oo qalbiga ka soo go'ay. caawa waxaa dadku waa badan yihiin waxyaabaha la sheegay waa badan yihiin oday 60 jir haddii mikrafoon loo dhiiban hadalka ma dhammaado والله هي أكيد حتى يعني عاوة وحا لو مناسبات بإسقفوشها مناسبة عالمك iyo guusha soo Soomaaliya soo horeeyay hadii tan calanka aan ka bilowno caawa calankeena Soomaaliyeed waa 67 jirsaday markii la aasaasay oo Soomaaliya oo dhan meel ay joogto oo hal calan ay wadaagayso astaan u ah markaas ugu horeysay 1954 Oktoobar. marka haddii oo dowladnimadeena ay marmar aan ku feena kacayno waxa weeyaan in lala yaabo waxa weey dowlad modern ah casri ah sideeda muddo ilaa 70 sano baa wadna haddii laga soo bilaabo 49 ilaa maanta waa 70 sano ay taabnaysaa marka ummadaha kale oo 200 300 gaaray يعني لو ديسنا نحكي وكفينا وكفينا وكاينا لكن وحن كسرنا دولة الرئيسية. مناسبة حاول تم لبعض كتاب كدوم أهرنت أو بدأ الصوماليين أهرنت كسر سنة تاريخ نيري صومرتي. تاريخ نيري صومرتي وحنا أدو حبور إن مركا قفل بوصوغل أما هيئات كسب كدولة يسوق شيء كل جول وحدها جاي شيء. هذا كسب بلا دولة دي كعنك شروع بدن بيكون بيسي. haddii aan ku raayo saabsan badda ka soo tag dowladii ka dambeeyay kulli wax bay soo qabteen xukuumadii ka dambeysay baarlamaanka ka dambeeyay madaxweynihii ka dambeeyay ayaa dushooda ay ku soo dhisayeen haddii aan ku raayahay arrimaha ayaga arrimo badan oo aan la socda ayaa jirta laakiin hadda kama gaaro waxaan si aan rabaa in markaa aan yara taabto marxaladaha ay soo martay. marxaladahaasi waxa ay ka soo bilaabataa aniga intaan la socda 2008 waxay ka soo bilaabatay markii UNCLOS ka hor waxaa weeye United Nations intii dowladda gacanka ay jirtay waxaa la ansixiyay sharciga la yiraahdo UNCLOS. sharcigaas wuxuu sheegay 10 sano ayaa la siiyay dowladaha dambe inay soo samaystaan qof qofkii dowladdii leh gayqaadeen inay soo sheegaan wixii sahan ay soo sameeyaan oo farsamo ay weli oo شروع هول لو سمعنا أنا كم أنا لهين مشاكل هالجري مركز برلمان وكانت هيشتنا دلوقتي هالجرتي على برلمان قارن بعيد درجة يجيني قارن تيجورين يعني حكومة الجلوجلة تشتغل وحافظ تجوري ومركز يونايتد شنو مدى الظاهرين إلى ولد عبد الله يا ولد سوق جاري ومركز طولك السنة والدمان يعني طولك السنة عن لقي جاري دبدا سواء صومالي هم وش شغل وعين قول يسمي العالم كنا هو كسمين كروه أنا خاص كهاي. ولا عبد الله وحلسه حريري حكومتي فرقة جرتي. والله يرحمه نور عدى إيوه وعين كيسي وعملنا إحنا السلام لنا. أيك أسمع روحا دراسة سالو سمينا حال غيرها يا سمينا ملاهين. أي واحد يحين فسري. إن مرتا لسميو دولة دورج. ولا عبد الله وحو دورتي نوروي إن يسميسو دراسة دايرة. وويسترن أفريقيا oo soo sameysay majaalka oo soo sameysay tii baa la sameeyay oo haddii ay ku rooyahay farsamo saxan farsamo iyo shuruuc lagu sameeyo ka soo saaray kulli wadnahay ala kulli hal mar inaan war ku dheeraado way soo socotay xukuumadii ka dambeeyay mid wax u geystay oo kordhay waa soo dhisay laakiin marka oo caawaan u joogno waxa weeyaan turning point waxa yiraahdaa jiray meesha marka oo arrinta markay soo kululaatay oo qabtay waxa weeyaan xukuumadii oo yani dowladdii uu hogaaminayay xasan sheekh marka shacabka qof walba wuxuu soo qabtay laakiin marka oo saxeexay arrinta la yiraahdo proclamation ama iclaan rasmi oo ka sameeyay oo xadidayo yani sheeganayo geeyeen intuu la egyahay
meesha uu joogo waxyaabaha loo baahan yahay iyo supporting document wixii marta oo kaalmeynaya inuu geeyo meeshii marta unclos afkan geeyo isaga u sabab aha taasi waxa weeyaan barlamaankii 8aad for example oo hadda Cabdi Xaashi nagala joogay dadka suurtogal ah waxay gaareen go'aan dhaxalgal ah barlamaanka 9aad wuxuu ku fariisay go'aanka 8aad uu ku fariisay kaasada barlamaanka 9aad waxa way wada tashi wanaagsan baa ka jiray guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha dhexdeeda xiriir fiican ka socdo arrinta ku saabsan labada arrimood oo aan xasan sheekh ku amaanayo aan ugu mahadcelinayo intaan shaqada la hayni waa laba arrimood arrinta koowaad waxay ahayd koob markii asaga la doortay ani hortiisa la doortay laakiin markii asaga la doortay waxaan ku heshiinay in adiga laba siyaasi aan hadda iskhilaafno dhagta shacbiga aan ka ilaalino khilaafkeen dhexdeen la cad qolaan isku xirina aan isu fiiqno laakiin yuusan dhaafin taas waa iga yeelay alxamdulilah waxa weeyaan 4 sano aan joogay fadhiyan banaan uga soo galay tan labaad waxay ahayd markii arrintan aan qabanqaabinay arrinta badda ah ayadana waxay ahayd in ilaa aan ka geynayno United Nationska 4 qof baa la socotay waa aniga waa xasan sheekh cali balcad ma la yiraahdo oo markaa chief of cabinet uu ahaa xasan iyo gabadha muna oo iyadan maqamish loogu timid adiga ka bacdi dadka waa soo kordhay Allah yarxamuhu waxaa ku soo galay injineer saalixi iyo dad kale soo darsamay badan wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa kala socotay isha madam Fawziya adiga dadka waa soo kordhay laakiin ilaa la geynayo Kenya waxay noo haysatay ilaahay waa noo sakhirayo marar qaarkood waxa weeyaan daayirageeda kasoo degay noo moodaysa laakiin waxba qabsan karin laakiin waa ku sirantay waxaa indhaha u furmay oo kaliya markii meesha la geeyey istaraatiijiyada oo meeshkaasi oo aan ku heshiinin madaxtooyada iyo madaxweynaha iyo annaga guddiga joogtada waxay ahayd 5 tallaabo istaraatiijiya aan degsanay raqam 1 horta inaan raadsano daraasaadkii laga sameeyey oo ay dowladda Norway ay sameysay United Nationska hayay raqam 2 in daraasadaas kaligeed aanan aaminin oo aan second opinion fikrad kale aan raadsano fikrad kale la keenay waa la fiirshay waxa inay sax tahay inay marta unclos waafaqsan tahay jiidamaha aan samaynayn 2 3 in la geeyo inaan geeyo guddiga aan geeyno marta dacwadda aan gudbino proclamation يعني واسي رسمي بروكلاميشن اعلان رسمي جمهوريه الصوماليات ماشي اي اجيجين وكيجيسد اي الى اخره iyo maqdhawiyada oo marka ay raacayso raqam 3 in aan midayno يعني ra'yiga dadweynaha kan xukuumadda kan baarlamaanka inuu mid noqdo marka aan loo kala miiseen waxay ka mid istaraatiijiyada iyo in lacagtii oo la raasho qawaaniinta xataa lagu fulin lahaa arrinta yani si fiican bay noogu martay alxamdulilah wada shaqayn bay ku imaaday marka guusha waxay u soo hooyatay shacbiga Soomaaliyeed cid gooni u leh haddii yani marar qaarkood hadalla aan dhahno waa iska jira laakiin nuxurkeeda aan garanay caawa aan fasiro bar dal nuuciyay magiciisa dal markaad tidhaahdo dhul keliya maaha dal wuxuu ka kooban yahay gey shacbi wax alla wixii nooloo ku jira oo xuduudkooda la yaqaan ama ha noqoto dhir ha noqoto dhagax ha noqdo haddii dad ha noqdaan wax dhan isku jira dhaqaaqil kasta ama daaba kulla daabi yani kullama dabba fi lard oo ku jira xuduudkaasi waxaa la yidhahdaa dal marka waxaana lagu qabsaday waxay ahayd geyiga u ahaa geyiga iyo dalkan yaa iskale waxaa iskale shacbi marka guush hadday soo hooyatay waxaa iskale shacbigii dalka iska lahaabaa saa daraaddeed inta kale mahadsanida la dhaha laakiin guusha waxaa iskale shacbigii ama si kale loo dhexleexan وحضرتك وأبدأ لكن وسوق علينا وحويان هذا دردار واحد ملك الصومالي يجوز هذا مواطنين جمهورية الفدرال هذا أنت الأمة الصومالية كتسمى دافع الدنيا كلا دقن حنا قد تكون درس ملك السبب وحويان إن جوش أن لجاري 6 تواضع أنا قابله أنا رتاف فانيو كبير أنا بسمين تواضع والسوق جوش وسوق يتي على عنده aan ka fakarno sideebaan mustaqbalka u hanan doonaa dabadeen u ilaashan doonaa una hanan karnaa oo aan ugu samayn karna daraasada
taasi waa iga dardaaran haddii la yidhaahdo oo aan u baahannahay inaan kulligeen aan ilaalino waxaa igu dambeyntii aan rabaa inaan idhaahdo waxa weeye guusha Soomaaliya waxaan leeyahay wax Soomaaliya amniga u soo hoyda waa amniga Kenya waa amniga Ethiopia waa amniga gobolka oo dhan dhaqaalaha u soo hoyda Soomaaliya waa dhaqaalo ay anfacayso dhammaan gobolka East Africa oo dhan nabadda iyo amniga kulligiisa waxa weeye waa mid wadaag ah weeye saadaraad waxa loo fahmo waxaan soo hoyday waa amni waa dhaqaale waa siyaasadda la kudan nabadda u soo hoyday geeska Afrika oo dhan weeye إن شاء الله ورتي مش عم بسوقه ولا قدام بيا من هذا هو قابلنا بدل قتينا مجلس يبينا